iyo wanaagooda iyo ixsaankooda. waxa uu marinaya alimaam muslim raximahu llahu tacaala nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu u baxay fatxi maka inuu soo maray mantiqat alabwaa. abwaa waxa weeye meel maka iyo madiina u dhaxaysa, xagga makana u dhow, oo ay ku duugan tahay ama ku aasan tahay nebiga calayhi salatu wasalaam hooyadiis meesha ku dhimatay wey. halkaa markuu marayey ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka haystay 1000 asxaabtiisa ka mida oo ciidankiisa ka mida, ciidan 10 kun oo la socday 1000 nin oo ka mida ayaa raacday nebiga calayhi salaatu wasalaam. wuxuu tegey qabriga hooyadiis, wuu ku dul ooyey oohin aad u dheer ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wax badan ooyey ayaa asxaabtiisiina oysay ridwaan ullaahi calayh. markaasuu wuxuu ku yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa waxaan weydiistay qabriga hooyaday inaan soo siyaarto, wuuna ii ogolaado isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam oynay. waxaan kaloo weydiistay wiyo inaan u istikfaar dalbo maadaamay gaalnimo ku dhimatay, in aan istikfaar ilaahay u weydiiyo, dembi dhaaf u weydiiyo, taasna waa la ii diiday. waa la ii diiday. nebiga calayhi salaatu wasalaam maqaamka hooyada ka joogta halkaase